بسم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابتا شرفت له قيمة بدن غايها بدن ومركني مقال برتنا دي قد هانيسان وبرتيني وبرتن كل جرني وبرينا في الشيال ادي ما سنت كسو دواده من اللي جعليها ولا لها قلبي سي شير غري برنامج اصحابتا لو وداغا channelka سبسكرايب نو صار سليغي نبي سوبنهنا صلى الله عليه وسلم هاي المؤمنين وقت صلاه دي انت سو تكاد انت كدب خاليغا هذا مسح مالمود بان مقنaa maanta ku 3 miya idinka maqnaa safar baan ahaa ul badan oo aanan weligay arag baan soo arkay hawlo iyo waxbaan aaday raaliga ahaada waliba anoo markii hore safar ka imi dhinacan ah iyo kor baan dhinacan iyo hoos hadana aaday oo sii gudbay waayahay ragga socodku waa u door oo hadii uu daayo ama dadka ba socodku waa u door hadii ilaahay qadartiisu de magaranaysa oo noqdo qof iska nool waayahay inta kadib qisadeeni ayaan bilaabanayna tii aad tiraahdeen dhamay waa dhamaystir tani waa tii labaad waa gabadhii miskiinta ahayd oo lugta laga jibin jiray oo nimankaasi ay kadeedeen islaan iyo wiilal ay kadeedeen oo aad iyo aad ay u dhibeen oo markii dambe eedadeed aabaheed la dhalatay inta u timi magaranaysa xoog kaga qaaday oo waliba adeerkeeda ka qaaday adeerkeeda xila furqaab laga qaaday oo buuq badan dhalisay kadibna waxa inoo mareysay iyadoo aabaheed ay islaantii lugta ka jibisay oo dhibaatada ku haysay oo kadeedka ku ahayd ay inta u timi inta aabaheed la hadashay ay tiri gabadha iiga soo celi gabadha ay lugta ka jibisay isagoo waa miskiin waxay u sheegtay uu aaminsan yahay eedadiisna uu u yimi walaashiis macnaha uu u yimi oo gabadhan eedada u ah oo yiri ilaa waxaan rabaa gabadhii baan rabaa oo halka buuq iyo ka dhashay markii dambe gabadhii yaray damcay inuu dhib ku kaxaysto inta uu qaado markuu gabadhii yaray ku dhuftay inta wadnihii xanuunay ay ul inta la soo orday walaashiis ku dhufatay markay ku dhufatay kadibna meelahan dambe bay kala heshay haw odaygii waa ka ku dhacay dhulka gagab baa la yiraahdaa wuu gagabay gagabkii buu dhulka ciida afka la galay qam halkaasay inoogu joogtay gabadhii waxa dhacday maadaama ay ciid oo aabay tiri afka uu la galay oo odaygii ay ka dhicisay eedo aniga gacanta qabatay waa carartay sababtoo ah horta way ka naxday oo waxay ka naxday inay naftu ka baxday bay mood biyo ku rushaysay xagee qabaday la baaya wuu soo miirsay markuu miirsaday oo caadi noqday oo fariistay ay aragtay bay gacanta qabatay naaysa xarsi halkaas oo kale gees abaan u carab eedaday gudin bay markaa la booday gudintii reer ooda ahayd oo reerka lagu oodi jiray bay la booday gudintaasay qaadatay aniguna way tiri ushi baan qaatay oo waa ka baqayaa laakiin de markaan nafta istifaacayna cabaar buusa gacmaha looyada saa ugu saarnaayeen miirku malaha u soo noqonay buu miirsaday caadi noqday lama soo aadine waa iska tigi halkaas iska aad meeshii marka wax kale oo meesha yaala ma jiro anigii bay tiri adduunyadii xiriir bay u noqotay eedadii baan la joogaa laakiin waxay tiri inan baan u ekaaday naasaan yeeshay daadax baana gabar qurux badan baan noqday ilaa naag 2 neef hal mar loo wada qalay oo xayir iyo subag iyo waxsaa la isugu fariisiyay oo juqda ka gedisay oo kabmatay oo bahalkii noqotay oo fi abaanahay
gegga waxa ay ii leedahay gabadha u soo kaxeeyaba wixii qorigii indhaha iyo dhagaha lahaa oo baaba'sanaayo eberka ahaa ma ahi gabar inanaho baanu ekaaday oo xataa markaas heer la damci kara joogtaba baanu ekaaday bay tiri dhacdhacdayda markay aragtay bayba aabbe ii soo dirtay aabbe islaantii haddana waa igu soo dirtay wax lay sheegay inuu yidhi naa u tegi mayna naga tag oo markaa diidan yahay waxay tiri anoo ladan oo laba ku lisanaya oo caadi ah waxaa jira islaantii doofaarta ahayd walaalkeed midah oo laclac ah ama nacas ah ama doqon ama neef ama saa u taqaanid heeca adee heeco qof adigu iska miskiinaho oo ilkaa sare xaaraantin wey oo waryaa soo hooyo in la dhaho maahane waryaa gurigo soo hooyo in la yiraahdo maahane aanba soo hooyanba ma garat in la yiraahdo waryaa orod soco soo hooyo oo orod gurigiini aad in la dhaho maahane aan banaankaba laga soo xiraysano banaankaba ka soo xiroon way meeshii gabalku ugu dhaco iska fariisanaya aanba ahaynba nin jawgiisu uu caadi yahayba maaha walaalkeeday la hadashay macnaha ninkeeday la hadashay oo ah bay tiri aniga aabbahay hooyadeedii aabbaheedii dadkeedii ehelkeedii baa jooga ummadii bay la hadashay waxay tiri dhageyst gabadhaas hebel dhalay maanta inan bay noqotay anaan aqaano waa gabar fiican oo dirac ah wiilka ha lagu daro ilaa iga daba hari mayso qof idaynaysa aniga oo iga haraysa maaha qof aniga idaynaysa oo iga haraysa maaha waa qof aniga lay daba dhigay hooyaday bay iga xiimanaysaa oo hadda ka hor aabbahay uu qabi jiray bay igu daba joogtaa malaha reerkii bay barogaraamkii ku shubtay barogaraamkii wiilkii nacaska ahaa barogaraamkiisii bay reerkii oo dhan ka dhaadhicisay dee reerka gabar buu ka qabaayo gogol baa la dhigayo laba nin oo ninkan walaalihiisa iyo aabbihiis baa meesha maray hebelow maanta waxaanu kaaga soconaa ma garanaysaa gabadhaada inaad na siisid oka gabdho isu diidna inama dhaxaysa guriga waxa joogta waa gabadhiinii yaa u rabtaan hadda ninkaasaan u rabnaa hebelow xoolna gabadha waa ka ogolla odagii hunguri baa la geliyey oo 11 halaad oo tan uu qababa aysan ka bixin bay u ballan qaadeen hunguri dhinacaas laga geliyey laakiin wuxuu yiri 11 halaad waa fiican yihiin gabadhayduna waa u qalantaa laakiin arkaama ka daysaan ugu yaraan hebel ma tiraahdaa sababtoo ah kaasatay waxa la yiri niihow odagii awowheenaha oo hebel la yiriba xanta waa ogtahay fulxantisma ma inagu dhan waa ognahay doqon buu ahaa la yiriyo walaalkiisa naagu dhisay maantana waa ogtahay walaalkiis intuu nin yahay bimaana wuxuu ku xisaabtamayaan iyagu kaba hadlayaanba hadda waa reer iyagu waa reer dhan oo ugu yaraan dee qowmiyad ku dhow qabiil dhan weeye kii lalahaa waa u dhisayna waa reer yar marka hebelba waa aragtay sheekada waa maqashay taariikhda macnaha inaga awowheeni afraad buu ka sheekaynayaa markaa waa ninkan aabihiisii kala sheeko adigu noocaas nin doqona buu ahaayo kaloo kala ah waxa u hiiliyey walaalihii iyo aabihii gabar baa lagu darayo gabadhii baa ilaahay wuxuu ka siiyey rag baa ilaahay ka siiyey raggii baa rag sii dhalay kuwii baa rag sii dhalay kuwii baa rag sii dhalay kuwii baa anagana dhalay wax doqon ay nagu aragtay hal nin oo doqon ay nagu aragtay hadda odagaasi doqon buu ahaa hal nin oo doqon ay nagu maadalay kan ma ahan kanna sidii oo kale weey intan uu ka tayo badan doonay gabadhana si wuxuu raad gabadha reerna way ka dhalatay idin ma diidaayo
oo gabadha hadda gabadheedii guriga waa joogtaa oo waa tan ma ogtahay fidmada ka dambaysa idin ma diiday gabadhiina waa gabar yar ninkaasina waa nin weyn una baahan isaga laftigiisu xanaano gaara walanagu talow waxaan tala ku soo jeedinayaa gabadha yaroo 12 jirka ah war hadee gabar ninkan hayn karaysa ma aha waa ilmo yar oo ka cararaysa aynu gabadha u raadino xoolahana inta ka badino gabar u cuntamayso oo garoob ilmo soo dhashay iyo bal waxaynu u raadino oo nin macnihiis taqaan oo fahmi karta oo ninkaana celcelin karta odagii saddegiisa nin culus buu ahaa nin dadka hadalka xun waa istaaga wuxuu leeyahay waa inoo diiday gabadha nabadayniyo wax ma aragtay afcad baa noogu diiday anaga soo kiciyo maya على كل حال أضيق وسكك دق يدي باب عيد اسماريس تدبويل بيد شيء مركا أباهي ولا لا هيسي وبحين بانو قد باب حي بيتر وحي هيستي أو قادن كرتي قادت هلكا عرورتي بيتكتكت سقي بقى قد باب العلسنا ولا لي ما هنا ولا لي تشوفنا ولا لي ماي وحول بيقى حرام مايا ninka calaa kulli xal barakshir baa la soo saaray culays baa la soo saaray iyagii waa ogolaaday iyaduna waa ruwaayaday rabtay ninka nacaska ah doqonka ah inaan naagu noqdo waa sir sheekadii baa marka soo socotay reerihii bay soo gaartay war hebel gabadhii baa la weydiistayo gurigiisa loogu tagayo waa la weydiistay بسم الله بيها هلكن يجري هبل gabadhii baa la weydiistay gabadhiina de wuu bixiyay gabadha yaa la siiyay ninkaas la siiyay eedaday bay tiri markaas dhar saa u wareegsan oo qurux badan guntiinooyin socon jiray iyo go'bay ii keentaayo sharax baan la xoolaheedana way tiri waxaan u ilaaliyaa laa ilaaha illallah naag waxaan noqday hooyo leh oo kibirtay waxay tiri markaa shukaansiga waxa la yiraahdo ba igu bilowday haasaawaha war tag baan ku jiraa baytiri war bax ma gaarin amal baan ku jiraa baytiri waxba baallaha iga yaacay ma maqli jirteen waxba baallaha saa iga yaacsan baytiri hooyadayna meel kuma sheego laakiin uma baahniba hooyada la sheegayana ma u baahnayn markaan baytiri nimcaan ku jiraa xoolaha eedaday marba waxbay soo gadaayo iyaduna la faheeda uga labisata eedaday ma aha bay tiri islaan dhacday ma waa islaan ninkii guursadaa 10 degdeg uu ka dhalay laakiin isu dhigtay inay tahay qof magaranaysaa weyn oo nin dhanba kiiba nin u uriyay oo nin dhanba laguma soo qaado wadnaha ka xanuunay iyada nin adimo iga tag abadiidanta in bal lama maqashiyo way iga sheekaysaa xumaanta nimanka iyo tababar bay siisaa waxay saa igu sheegtaa nimankan ii imaanayo ilaaha saawaya kaas muxuu ki dhinac yar taabsiye bay tiri eedadii baan hore ka taabsiye sheekadii baan maqalay bay tiri daawuskii nabarkiisa arkay oo kala noqday quq ma nacaskii ma doqonkii aan ku ciyaari ma kii maradu ka dhici jirtay intuu noo yimaado وريا مرة شوري على ليج حوليس بناكس كيالنا عيالك ويقانان اوف ما وحاس يدي بقى كذا ما يسوي تريد واحد تريد دي واحد تري هل ما كوش شغا انا ونين ماهي كما دفاعي كرا هذا يقول اني ما تهيد ما دفاعي كرت هل تصال هل قضب كليه waxaan ku keenayaa lacag baan ku keenayaa lacagta qaado meel allaale iyo meeshii adduunka ku ceshata aad waliba dhinaca iyo xamar aad weligaana ina hebel baan hayaan laga maqal maalinkii lagu guursado ubad aad dhashido qof isku kalsoon aan noqotid markaa haddii aad u baahatid reerahayn waa u iman kartaa laakiin inta ka horeysa waa markii sheekadu cadaatay oo isagiina u yimi oo u sheegay oo marka
eedaday waa baxday ahmi bay ka haysatay nin waxay tiri waryaa ahmiga raashin iyo afaaro iyo waxba ku bixin jiray anigu waxa ma rabay waxa isiisaa lacag baan rabaa lacagtii gacanta waxay tiri lacag waa ila dardaarantay waa ila hadash magaalooyinka wala isku dhaca wala isku waxay tiri tag gabar walaasheeda bay waxay ka soo kaxaysatay gabar yar mid kale tan waxay ka soo kaxaysatay wiil waxay tiri xoolaha la sii jooga habeennimadii xoolihii bay meeshii magaranaysa subaxdii bay rabtaa tan inaan baxno reeruhu waa kala fogfognahay waxay ogaan karaan waa maalin iyo wixii ka dambeeya geesna waa u xignaa eedaday nimankii u dhaamin jiray waxa ka baxday iyada doonatanaanka reerkana anaa la ooda markaan uma baahnin in wax noo oodaan iyo wax la taro iyo midna uma baahnin eedadayna waa xoog waana gabar yar iyadoo yaroo 13 jirtaa nin la siiyey dhowr iyo 10 sano markuu qabayna bax buuyi eedaday hadday ugu yar tahay waa dhali kartaa 8 iyo 9 markaas waxay tiri soo dhaqaaji isa soo raacnay magaalada nimi baabuur bay gurada iga ritay baabuurka ana tareebo ahaa bay tiri isjiidanaya sariirta dambe la seexanayay naag bay tiri fadhido oo saa u fadhido oo malaha cid soo maagtay ma aqaan la soo rifay soo u fadhido وميل إلهي وحكا وضعي بالله هذا ولا لماذا راعي ولا لقوة إي واردي وكان قبل يواسك آمسان حيث ولا محاكو قل عين waxay tiri intii gaarigu taagnaa oo xoolo iyo waxa la saaray la rarayay baan meesho oo gaarigu awal buu inta furka dambe iska soo furay baa xoolo la soo saaray kana magaaladu iska soo aaday marka uu noqonayo xoolihii uu soo qaaday isagoo ran buu soo maray meesha waa raaci doonaa gabadhii way iswareysteen si sax wax ugu sheegin bay tiri eedaday laakiin waa naag inta la dhibay reerahan ka tagtay oo xagga tagtay oo soo guursatay oo ilmo ku soo dhashay oo caruurteedii iyo ka timiyo marka isla bal hooyada waa tii xanuunsanayd bal soo fiiri oo hooyadeedba inay aragto loo diiday oo gebigeeduba murugo iyo silic adduun ku jirta hooyadeedna inta soo aragtay dhibaatada ay ku jirto soo aragtay inay qaadatana loo diiday inay magaranaysa mana kala qaybsami karto caruur baa ku jirto hawl adduun baa iyada haysata marka wixii bay xoogaa waxay tiri gabadhaani dadna ma taqaan dan lama taqaan in adeeray fakad weeye gabadhu waxa aad sheeganaysid baaba adiga lagu qaataayo gabadhan xaalad adag baa haysato oo saan weysan waxay tiri u fiirtaa حتى القبر ده أنا أسكت ضناه أنا إني هبل هبل بالله ده أنا كريد هبل هبل وأنا هاي ساس أنا هاي ما قاعد يقول نوع أي نوع قبر داس أنا ما عرفتي كحيني وإحنا كهجة ما بهنا بيتري وحي عنتي وحي أبط لقالة ويسيت هاتنوا قبر ده يدي بيتري أنا كحيسنا يسكت كبو سولية دي أنا يقول أنا لا تجي هذا صعد لو ما درتينها أنا هذا المسؤولية دي يقول تن بعتذا أي هذا كل جرته أنا صام مري أو فكذي فكت برميش كتير حاجة أمر كان فكت كتير إنسان هانا وأبعي كبح هذه أي ما يمغلسها إذا كان مسؤول الرع بإيد ذيت وأخذ شيء سيدي بقى أنا ترى نوجيني قرض عنه كقول لي هاو قاري قابل الله ما أفهم بيترني من كاس كريش بويجا يبلاي ذا قاري قال صعته ما بدأ كواسان بعافية بيتر هذان يدي هبين بركي نمكي حنك هاي كلش بيجا هاي يكيد دري ورك هاي وريقة تجا قبل ويتنا على بعوار ضفاري شيء كتوري عيبك وران أمس سان أسيس عني شو ما بعدين بهالك جد كاسابا أيوسي كلا ديران waxay tiri marka waa la qaajinay xamar baan tagnay
ciyaalkeedii gabar shaqaala ay waxba u joogo nin madaxba qaba isla markiiba waxa jira ninkeeda wiiluu adeer u yahay oo nin dhalinyaro ah oo xaafadan jooga oo isaga laftigiisu reerahoodu ay iska reer miyi iyo waxa yihiin oo garanaysa oo isaguna xaafada markaa jooga oo reerkan cunada la cuno waxna barta kiiba isbaranay wixii baan maaragtay aduu calaa iyo kulli xaal ilaahay amarkii wiilkii baa meel la geeyay madax buu noqday ninkii nin wax bartayna wuu ahaa ninkastoo xaafadan magaranaysa uu ka ahaa nin xaafada bariiskii ka cuna uu ahaa ninkii ilaahay waa u kala kiciyay dhag isla markiiba waa dalaacay madax weeye oo meel baa madax looga dhigay waxa looga dhigay meeshan la yiraahdo wixii adigu xoolaha iyo lagu ururin jiray iyo wax saas baa madax looga dhigay marka madax fadhida oo xafiis aadaysa maaha waa kormeer buu tagaa xagga tag meel hulaay tag madax ninba booskaas xisaabaadku wuxuu ku noqday number 1 ninka aad xisaabaadka ugu fiican marka maadaama xisaabaadka number 1 noqday nin baa soo kixiyay isla markiiba xafiis baa la geeyay xafiis baa laga dalacsiiyay xagga audit dabagal baa laga dhigay waxaa loo dirayaa Hargeysa waxaa loo dirayaa Burco maalin wuxuu aadayaa xagga Boosaaso Qardo Garowe Gaalkacyo xagga nin meelaha loo dirayo oo Kismaayo uu buno xatwiilkii da wiil yar maaha laakiin bay tiri aduu calaa kulli xal ku soo kaay baxday waa ila sheekaystaa bay tiri anna waa la sheekaystaa waa jeclahay maqnaanshihiisu dib buu u hayaa bay tiri aad buu ii dhibayaa jacaylkiisaan dareemayaa almuhim ninkii dabagalka maadaama uu noqday lacagtaydii waa ii taalaa wax iga baxay ma jiro markaas waxaan joogaa muddo 8 bilood ah waa ilbaxay shaqaan rabaa inaan qabto marka ninkan baabuur buu wataa asbuuc ba degmo aada gobol buu aada hal asbuuc soo maqnaa aniga way tiri bilihii ugu horeysay wiilkan waxay tiri waa ka helay bilihii ugu horeysay bay isaguna isla bilihii ugu horeysay waa iga helay markaan xaajadeedu ilaa anigu 7 bilood baan joogaa 4 bilood baan wuxuu yiri waxaan rabaa inaan ku guursado waka ma waxaan ku irabay tiri guurka waxa ka horeeya ganacsi baan rabaa inaan shaqaystaan rabaa waka way ganacsigeygii buu ila qaatay waxaan bilaabay shaqo meel yar baan samaystay oo waxay tahay ganacsigeyga baan samaystay meeshaydii ganacsiga suuqa dhexdiisa ahayd oo isagu iga waasteeyay niman iyo wax u tagay oo ka meel yar baan shaqan bilaabay way isla qaateen shaqadii bay bilowday gabar firfircoon oo aad iyo aad u firfircoon way shaqadeedii ilaahay waa u kala baxshay wuxuu noqday isaguna nin kaba gabadhii oo u yimaada oo ka warhaya oo mar walba oo dadku isagoon qabin nin la shaqeeyo dadku waxay u qaateen isagoon guursan oo wali xalaal aysan u ahayn bay dadku waxay u qaateen inuu qabo ninkaagi kadib wuu guursaday gabadhii ma sha Allah meel bay degtay ilaahay amarkiis waxay timaadaa boos Soomaalidu ay isugu yimaadaan dadkaas deegaanka ka yimaada iyo familka ay bay timaadaa maalinka jimcaha meesheedu waa xiran tahay maalinkaas ay timaadaa ina hebel baan ahay bay tiraahdaa dadkii bay waraysataa warkii oo dhan waa loo sheegaa cid wax kama qarayso dadku xagga markay tagaan gabar ina hebel aan xagga ku soo aragnay oo waka gabadh iyadoo gabar qurux badan oo qof shaqaysanaysay noole ekayd warbixintaasay geeyaan warkeeda fiican in halkii la geeyo way rabtaa waxay raadisay hooyadeed ma hayso
hooyadeed qof boqolkiiba 90 dadka deegaankaas waxay ka raadinaysaa hooyadeed ma hayso jaan iyo cirib meel hooyadeed dhigtay ma garanayso halkaas waxa ka raacday lugooyo kale laakiin isla waayadiiba gabadhii 2 sano iyadoo u buuxdo gurina ay leedahay shaqaysatana yaa eedadeeda warbixintii loo geeyay gabadhii waa shaqaysataa oo cidna daa kama saarna ruuxna iska qarin mayso ninka waa madax wax cid ay ka xishoonayso cid ay magalanaysaa wax ka ma jirto ehel iyo filinkaana qof qoran maaha oo qof ehel iyo afaarihiisa yaqaan warbixintaa uun bay u soo aadaa waxayna raadinaysaa aabaheed hooyadeed iyo eedadeed labadaas uun baa u ehlaa labadaa uun bay raadinaysaa marka maalinkii dambe islaantii baa warbixintii loo sheegay xanuun baa marka islaanta haya oo aad xanuun baa nafta u keenay waxay istiri allayli awal xanuunku way ku ogeydi waxay istiri xamar inta tagtid bal markaan caafimaadkaaga la tacaal way soo tagtay magaaladii meeshii bay timi gabar baa soo kaxaysay tiyo meheradeeda fadhida eedadeed loo keenay irkaasay inta soo martay dab bay ku dhigtay eedo macaan magalanaysa waa kaxaysay gurigeedii bay geysay gabadha guri qasri abay degantahay magalanaysa oo gurigan ay degan tahay booska ku dhegan baa iyadii ninkeedu lacag inta isku dareen bay gateenoo dhagax iyo adduunyo iyo waxbaa ku rogano inay guriga ku dhegan kan dhistaan bay rabtaa islaantii ilaahay inuu kala kacshay way aragtay gabadhii barwaaqa ku jirto gabadha marka eedadeed waa gabar yar waxa kaliya oo iyada welwel ku haya wax kale maaha waxa welwel ku haya waa eedadeed oo aan ilmo lahayn 24 saacna walaalaheed iyo ay madhasho ku sheegayaan oo ma garanaysa waxay ku haysaa dhibaato fara badan oo aad u weyn bay ku haysaa waa arintaa waa ka xanuunsantaa wayna aragtaa islaantan wanaajisay oo sharafta iyo qiimaha ay leedahay ilaahay ka soo u yeeshay ninkeedana u ah eedada waxay og tahay eedadeed inay ka yar tahay tanina ay maalin walba dhasho oo intii ay hadda joogtay 2 carruur dhashay waxa aad madaxu uga weynaaday arrintaas waxay tiri dhakhtarkii bay geysay waxaan nafti u keentay xanuun baa macnaha islaanta nafti u keenay oo si kale haddaan u dhigno waa dumarka qaar baa jira magaranaysaa dhinacan iyo laga hayo dee markii asbuuc bil ay joogaanba hawsha iska timaada oo dhinaca gabdhaha ku timaada waa dadka halkaa dhigta oo sujuudda dhigta taasaaba ka garan kartaa in gabar yar tahay oo ku xanuunsada marka xanuunkaasoo ay la daashaday waa haya dhakhtar bay geysay dhakhtarkii wuxuu kula taliyay guurso oo ma garanaysaa haddii aad ilmaha ugu horeeya dhashid waxaan uga tegayaa dib dambe xanuunkaani sidaa ku noqon maysid وبيرد حنون ودريم دونتا لكن سيدان iyo wax u dhow midna ma noqon doonti marka ku xisaabtan waa inaad guursataa gabadhii dhakhtarkii haduu maamadiisa ku yiri awal waxay u socotayba uu xanuunkan ay nafta la noqonayso aysan de ri ay leedahay la oo iska qolo dhaqatay ri ay leedahay oo halkaas oo kala taagan aysan xataa oran karin marka nabarkaas qabto oo nafti u keenay kaas maadaama uu dhakhtarkiisa ku yiri gabadhi waxay tiri eed baadiyahan isaga soo tag xoolahan iyo dadkan iyagu ma ku dhaheen ma dhasho way ma ku maagaan ma ku fikirayaan inay xoolahan iyo waxan qaataan eeday soo guur aniga imow xoolahan waa iibinaynaa ganacsi baan ku samaynayaa nin guurso magaalada Muqdisho inta Ilaahay bilaariyay ninka guurso waa kan barnaamij noocaas bay ku akhriday islaantu waa islaan qurux badan ma aha islaan gabadhu waa gabar qurux badan waa gabar dhexdhexaada Ilaahay jamaal siiyay iyo joog
magaaladiiba waxay joogtay 3 bilood meelaha baadiyihii iyo wixii iyo xoolihii waxay kaga timi caruurahay korsatay kii walaalkeed dhalay oo nin weyn ah baa jira oo guursaday oo reerkii qayb xoolaheedii qaar ka mid ah ku guursaday 3 bilood kuwaasa marka xoolihii haya waxay tiri tag ka soo tag meesha xoolahaaga joog iyadii la joogtaa waxay aad u sheekaystaan oo aad sheekadoodu isugu baxdaa boqolkiiba boqol islaanti hooyadeed loo diiday oo ma garanaysaay almuhim tiibay sheekaystaan tiibaa u timaada gabadhan martanaa u tagta oo maalinka jimcaha ay firaaqa leedahay waa u geysaa si fiican bay u wada hadlaan maadaama ay si fiican u wada hadlayaan oo dad isku fiican oo ceesh oo milix ay yihiin dhibaatada reeruhu ay leeyihiin oo gabadhan lagu sameeyay oo ilaa hadda hooyadeed loogu diiday awal ay ka soo carartay dhibaatada ka soo carartay bay uga sheekaysay tanna dhibaatada ku dhacday bay uga sheekaysay waxay tirinahayd hadiiba ninkaasi intuu muddo ku qabay ku furay oo lagu yiri ma dhashin nin kale ma isku tijaabis halkaasay u boodeen nin mar raaway tilmaani Soomaaliyeed baa qiimeeyay iimaanka Allah ka qabo naan nimanku isku wada mid ma aha waxa moodaysidna ma aha inaad guursatid baydina adeer waxaan qalad weey qalad aad gashay weey ninkii meeyay isagoo ilmo ma dhalay may naag buu guursadayo 3 sano meelaha markuu qabay isagoo aysan waxba u dhalin buninkii dhintay okay ciladu inay ninka ahayd adiga ahayd isma tijaabin oo maxaa u guursan weey hadii nin kale inta guursatid uu ku furo waa ilmo u dhali weey oo mid kale ku guursan oo ilmo u dhali weey oo mid kale ku guursan ilmo u dhali ku furaan de markaa ha waxay tiri adiga anigu waa israacaynaa bari baynu tagaynaa dhakhtarka haweenka naag baynu tagaynaa tii iyadoo yaxaysa islaanti gabadhi baa la wadaa laatani ilmo 2 bilood jira bay haysataa ma fahmaysaa waa isu guud tirsadeen oo tanaa 2 guweyn macnaha 2 sano bay weynta macnaha deyrtii biyo badan 2 sano oo ka horeysay baan dhashay bay isleeyihiin iyo aniguna deyrtii biyo badan baan dhashay saasay ku garanayaan marka 2 gubi ka weynta inkastoo gu iyo deyr laba kale yihiin laakiin deyrta noocaas deyrteed baan dhashay dadka iska dhaha 5 deyrood baan jiraa iyo ilmahan 5 macnaha 15 deyrood buu jiraa ma dhahaana waxay dhahaan 15 gu buu jiraa saas weeye marka inaan deyr iyo gu kala garan lahay ma aha almuhim gabadhii waa kaxeeyeen waxa la geeyay dhakhtar haween gabar baa loo geeyay waxay tiri may waa fiirisay waxay tiri wax allaale iyo waxa qabtid ma jiro dumarkana dhiigaan waa dhibaa wax ku bahalkayana ma jiro waxa ma garanaysaa xanuuna qabtidna ma jiray kurso oo may nin baa intaas san iqa ninkii mee naaga kala ma guursaday ninkii naaga kala guursadayo naag kala guursadayo dhowr sano kadib isagii baaba dhintay iyadoo waxa u dhahay ciladu adiga ma ahayn isaga ahayd baa laga yaabaa orod guursaa lagu yiri islaantii way iska soo tagtay xoolaheedii bay u timi laakiin 3 bilood bay waxay ku jirtay nolol daadax ah macnaha u faham nolol daadax ah oo degan oo arigii xoolaha waxba cunay ay shees meesha ku jirin meesha markay tagtay baadiyihii nolosha cusub soo dhaweey bay noqotay 3 bilood iyo bar bay xamar fadhiday oo jawigu u fiicnaaday oo erkay caada ay maraysa qurux soo noqotay midab aan lagu aqoon baaba ka soo baxay war yaa ilaahay yaqaan war hiblaayo masaanay u ekayd waa meeshii timi si kasta ha ahaatee xoolihii bay wiilkii ku wareejisay qaarna waa soo qaadatay waa la soo kacday magaaladay keentay oo waa xaraashtay iyadoo lacagteedii kaashka ahaa wata bay soo tagtay magaaladii bay timi bini aadanku waa cajiib xaafadooda gabadhan xaafadeeda gabadhaasi shaqada waxay ka soo rawaxdaa 4 galabnimo gurigeeday timaadaa gabadhii weli ilmo ilaahay ma siin oo male arxan kuma sito laakiin gabadhu markaas
ninkan dee waa isqabaan waa naagtiisii nin waxa iyo ilmaha ay uurba i yeelan weyday iyo filinkaa ka shaqaynaya maahe horumarin ka shaqaynaya weye xagga siimal xagga kanaan qabanayna maanta kanaynu samaynayna guri dhisow bay ku jiraan gurigii bay dhisanayaanba waa dad nolosha cusub soo dhaweey sheekadoodu tahay gurigii oo gacanta lagu hayo bay timi gurigii oo gacanta lagu hayo bay timi oo markaas xaaladiisu ay daadax taagan tahay islaantii lacag bay wadataa waxay tiri dhinacayga meel ah baad ka shaqaysanaysaa oo ka shaqadii islaantii u samaysay lacagtii qaar bay ka daynsadeen oo gurigii bay dhamaystirteen gurigii kirada bay ka guureen koodii bay u guureen gurigoodii markay toos ugu guureen oo gurigoodii degeen oo kiradii iyo ay horta ka baxeen islaantan meeshii ay joogtay nin ka ahaa ma garanaysaa gabar meesha deganayd shaqaale u ah oo iyada gabar baa ku dheganayd laba dhexda marka ay eedadeed uga habaysay meel shaqadiina iyadaa la wada unteedii bay ballaarisay ku shaqaysay tiri geeskaa ninkaa marka geeskaasu kasii xigaa kiibaa afka la galay kiibaa ma garanaysaa ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin xamaali ah oo alaabaha u xereeya oo gabadhaanina waa ka warqabtaa laakiin markaan la aaminay oo gabadhaan dukaan kale ku dhegani ay aamintay oo uu shaqaale u yahay eedadeed iyo ninkii waa isugu baxday markaa si fiican bay sheekadii isugu baxday waa sheekaystaan daadax bay isku noqdeen xaafaddu ugu yimaadaa kumay oran ninkani xamaali buu ahaa eedooy waa kan baba eedadeed inay nin hesho bay maaragtay aad iyo aad ugu faraxsan tahay eedadeedna dhaqaalo badan baa u yaal intan yara ay celcelinayso inay wax ka soo saartaa la rabaa maahaane dhaqaalo kayd ah waa markaa bangiga ugu jira oo u yaala iyadoo jeegay soo qaadan karta almuhim eedadeed waa guursatay ninkii baa guursaday ninkii ilaahay qadartiis weeye wax kastiba ninkii markuu guursaday waxba ma shaaqin maadaama uu meeshaan ku dhegan shaqaale ka yahay naagta meesha u dhiibtayna garoob ciyaal haysato weeye oo ninkan laftigiisa iskaadkaad bay ku haysay waxooda way iska qarsadeen muddo markii la joogay isumana dhigmaan islaantan gabadhan eedadeed iyo taa kale tanaa qurux badan joog iyo jamaal leh si kasta iyada ugu qurux badan waa ka laga reer magaalsan yahay oo kaliya reer magaalnimo la dheeriyaa wax kale oo la dheeriyahay oo meesha yaala ma jiraan aan reer magaalnimo ahayn gabadhii marka guurkii wuxuu yiri waa qarsanayaayo waa kaas shaqada iga cayrinaysa haddii ka cayrisanayd ee ka tagtan ku dhagan ma ka shaqaynaysaa soo tan baa adigu mali hadalka markay saaladay 3 bilood baa la qarinayo show islaantii xanuun baa waxyeelay waxaa ka qaldan war gabadha maxaa ka qaldan gabadhii baa shakiday eedaday uur bay leedahay bay tiri orod bay istaabatay waxay tiri waxaan ku geynayaa galabta khamiis wey waxaan ku geynayaa dhakhtaradii berigii haweenka aniga naag uma rabo calaa ay kulli xaal meeshii baa la geeyey islaantii bay u geysay uur bay leedahay yaa mana uurla islaantii farxad bay la dilaaci kaartay waxay la degan tahay marka gurigooda bay la degan tahay taasi ninkan waa gaadgaadaa laakiin meel uu degan yahay iyo kama war hayso dee oo xaafaddan deganahay iska yiraahdaa laakiin waxna ulama bareerin hore ay guursana may oran in isguursanana ma oran qoradaba gaale macnaha banaankaas ay ka ilaashataa meeshina waa u dhiibtayo gabdhaha Soomaaliyeed sida la yaqaan oo majority-ga ah oo badan ninka inta magalanaysa ma dhahaan kaale wariyaa ma dhahaane xogaha maartay boor isku qarin bay sameeyaan qoftu boor isku qarinta inta ku jirtay baa la gaaday marka ninkiiba naag iyada la dhaqaala ah oo meeshii inta fahantay camiratay oo inay ka dhaqaala badan tahay ma ka dhaqaala yarayn buu naagtii buu guursaday ninkii maalinkii dambe meesha timaadbay waxay aragtaa ninkan isagoo naagtan saan yeelo meherday ka maqan tahay buu gaday say tirteen lama gadi
saasaa iyada laga gadanayay kuma arki tirooreya pastor laga tahay naagtaan iyo agteeda kuma arki anaga tagbiyo waxay heshiisiyada manaagta anaga uurka nool oo xaaskayagii abaa leedahay iya qalbadii baa iyadana jabtay qac way qaraacantay ha qaraacantee dee qaraacan meesha waxa ma yaalo shaqadii bay ka cayrisay maalinkii ka cayrisay maalinkii wixii tanuba fariis tanuba ka gadayaalo xagay ka laabatay wadadii u istaagtay may macquul ma aha ma suuroobayso soo noqo shaqadaada ku soo noqo kula kaftamay oo kula may haradan aniga leh tanna waxa weeye shaqaalan ka ahay tanna aniga leh marka walaalay hadda ii ogoshahay iyadiina waa joogtaaye labadu waa ka wada shaqeyn tanna waa ka shaqeynaya tanna waa ka shaqeynaya hadda ii ogoshahay ma garatay haddii aadan ii ogolayn soo maaha taydaanan ka shaqaysanaya anaa tan leh laakiin aniga inaan kuu shaqeeyo adaa diiday raallah xaaskiisa markuu saa leeyahay kalama tashan habeennimadii baa xaafadda tegey wuxuu yidhi naagti baa ii timi saati oryaa kuguma arki karay tiri isagaana u sheegay oo yidhi naagtu sibaad moodaa inay ii dandamacsan tahay waxbaa qaldan allahayo waxbaa si isugu muuqda ma garan buu ku yidhi kuguma arki karay tiri meheradeeda nimantii kartid ebelow walaalo meeshii baan rabaa inaad iyadoo la joogto inta u timi sankaysaa u fiirinaysa arigii iyo wixii iyo ilowday uurku yuc waxay tiri walaal hebel meeshuu ka shaqeeyaa tanuu hadda ka shaqeeyaa taa hadduu waa ka shaqeyn jiray tanuu hadda ka shaqeeyaa anna hadda waaba cuslaadayo inaanay iman bay u badan tahay marka waxaad yeeshaa iska ilow hebel wayna og tahay inuu ninkeedii yahay ninkii bannaan bay saa kaga maraysa uurkii waa muddo joogtay dhac ba halwiila meeshii ilaahay wax ka wado iska noocaa ma ogtay gabadhii farxadeeda jalan wiil bay dhaka siisay wiilkii waxa istustay in ay la tagto oo baadiyihii la tagto oo xoolaheedii iyadu wanqal ay u samayso cajaa'ib wanqal inay u samayso oo u soo wanqasho bay isku programaysa waayahay wiilkii yaraa wuxuu yidhi hala tegin sug ha adkaadee wanqasha halkaana ugu samaynaynaa bal joog waxay tiri maya waa tegayaa walqashaada maahan walqashaan aniga anaa samaynay 2 neef buu soo gaday dhac 2 neef oo qole wuxuu waa dhamaatay adiga 6 bilood markuu joogay bay tiri inaan walaalahay u tago oo ka soo ducaysto ilaa nabar baa ku taagan inaan walaalahay u tago oo ka soo ducaysto baa shardi ah na walaalay ilma yar baa wadataa uurna waa leedahay oo waatan calooshii yicdo ku tahay marka uur bay leedahay caloosha soo baxday 40kii marka ka baxdayba mid laad baa ilaahay si waaba intay rabto iyadu midna waa wadataa sida walaalkeeda oo kaleeto halkaan dhigtaa wuxuu ku leeyahay buro yar bay wadataa oo walaalkeeda ma garanaysa oo yar ah oo ay xataa magacay u bixisay kii walaalkeeda ahayo ma aha kii ay isku hooyada ahaayeen mid kamid ah oo buraale la dhaho bay iyadu iska tiraahdaa buraale wiilkeedan ma fahmaysaa magaca aabihii u baxsaday Cabdicasiis ama jaamac xirsi ka doonta dhehe magacaas ba sheekadu ugu jira iyada jadwalku ugu jiro laakiin jadwalku waxa ugu jira oo kaliya bas buraale iyadoo buraale wadata si u celcelinayay tiyo 6 bilood dhaaftay 6 bilood tiyo dhaaftay fakat axkama fatuwa waa tagtay meeshii ninkii waa gadaya si u soo socotay baytin reerkii halkaa meel heblaayay degan yihiin meeshii way timi wax kale maaha suuqgeyn baa la yiraahdaa xaamilana waa tahay itusoo itaabsii weeye wiila waa wadataa gariidha kacad oo buraada la dhaho reerkii bay isugu yeertay waxay tiri duco halay sameeyo alla bari xus baan samaynayaa aabe
iyo hooyo iyo kulli dadkaasoo dhan baan xusayaa khalaas alla bari weyn xoolaheedii baa jooga lacagna waa wadatay waxay gaday qaalin geela bay soo gaday waxay soo gaday qaalin lo ah arigeedii bay soo xufgoysay 20 roob baa da'ay macnaha barwaaqa taal meesha wixii bay waxay tiri 20 neef lo ah iyo neef geela iyo alla bari iyo in lay duceeyo heblaayay u tagtay heblaayadii yarayd weli iyadu urma leh dadkii bay u sheegtay islaamihii baa weli islaantii doofaarta ahayd baa weli maagaysa oo halkaa waxay ka leedahay iyadoo maqlaysa waxay leedahay taasi inkaar bay iga gashay aniga inkaar iga gashay ilma ilaahay siin maayo bay maqashay dan kama laha laakiin waxdana kama laha almuhim halkaas waxay dhashay gabadhii iyadoo xaamila macnaha raashinkeedii waxooda iyo xoolaheedii inta la cunay bay soo tagtay wuxuu walaalay lacag gabadhaydii markaasay waxay istiri yuusan gabadhii cunin ma fahmaysaa waxay tiri gabadhu nin baa qabo oo guri weyn leedahay ninku halkan u yimaada nin madax baa qabo bay tiri waka waa imanaya maya bay tiri walaalay waxba hadda ha u imane waad u imaan doontaa hadda waxay ugu kaa soo dhiibtay lacag laakiin lacagta halkuma hay bangigay rabtaa iyo magaalada inay la tagto magaalada la tagtay check bay u soo saartay gacanta ka saartay ilmaheedina waa wadataa xaamilana waa tahay dadkii iyadu waa isa soo tustay waa boqol laakiin adduunyadu sidaa moodaysid maaha gabadhii lugta ka jabnayd oo la jebin jiray laadka lagu jebin jiray oo saalada geela lagu tuuri jiray oo maalin walba la naafeyn jiray gabadhii taariikhdeedu waa taagan tahay laakiin eedadeed bay waxay u noqotay faraj inay gabadhani fakato oo xagga tagto oo ninka ay eedadeed u geyso oo ninkaas ay ilmo u dhasho oo eedadeed ay magaalo fahanto waxay ahayd qadar ilaahay laakiin gabadhaas sabab u ahayd inkastay eedadeed tiri carar gabadhii mudday joogtay horta way tagtay eedadii magaaladeedii bay ku noqotay eedadeeda 3 dhashay way gabadhii kadib wiil dhashay eedadeeda 3 caruur dhashay bay iyadii kadib uur yeelatay wiil bay dhashay haddana uur kale yeelatay gabar bay dhashay iyadoo labadaa haysata ayaa waxa yimi waxa la soo dilay oo dhaawac loo geystay adag walaalkeedii ku aabbaha ahaa laakiin aan ku hooyada ahayno naagtii ay dhashay baa dhaawac loo geystay nin buu awr iskaga diray awray leeyihiinoo geela garbaha kala jabiya baa layidhi awrta garbaha kala jabiya oo la yaqaan buu nin awr kaga diray wiil yaruu dhalay baa la joogay aaba wiil ninkaasaa ku diray kiibaa marka inta soo orday ratigiisi waa fariistay ratigaa dib uma raranaya dee halkaa garbaha abuu la baxay bahala miciyaasaa ugu geliyey oo dee isaga noqnoqday ilaa uu ratigii markii dambe bes noqday ratigaas bes meeshii ummad iyo gar iyo waxbaa jirtay laga xaali lahaa xagguu ka soo laabtay cunuguu ku diray buu yidhi hoo iga hoo bahal huur ah uu watay qaar ama huur ama bud ama bud ama garuun hadba kaa u taqaanid buu halkaa madaxa aqaaday cunugii lafaad digada ah isku noqday cunugna maaha waa nin weyn oo kana kuu dhalay isagubaa ka yar ciilka isugu darsamay waxa weeye ratiga wuu ka celin lahaaye dee ninkaasaa ku diray oo meesha jooga almuhim kaasaa aabbihii soo qaaday waana waa kii lugta ka jebin jiray xamar baa la keenay isbitaalku yaallaa gabadhii iyo wuu soo raadshay walaashiisna waa joogtaa gabadhii waxay tiri dhegeyso ma aabbaha ise wiilkaa
aabaha horta isagu garay garta waa kugu leeyahay waxaad tiri kartid tar iisan habaar isku habaar laakiin wiilka haddaad soo booqanaysid iyo haddaad soo booqanayn haddaa u imaanaysid haddaad u imaanin aday ku taala cusbitaalka iyadu waa ugu tagtay eedadii wiilkii bay aragtay oo le oo indhahaas u caday oo xaalkiisa ilaahay og yahay bay soo aragtay iyada odaga soo kaxaysay xaafadii bay keentay kale wiilka ilaahay aab kulama hayn karabit waa rul ma haystaa shaqana waa haystaa qof kula hayn kara dhafar bay dilay oo habeen kastaan soo jeedaa kale ninka ilaahay waxay tiri aabe aniga aabahay baa tahay lacag baan ku siinayaa qof kirayso xataa waardiyaa kula waardiyaa lacagta ana bixinaya laakiin xataa aabe inaan arka ma rabo inaan inta u tago walaalkay baa cusbitaalka yaal qof kuma oran hal qof kuma oran dadka aniga macrifadayda asxaabtay hal qof kuma oran xataa ninkayga kuma oran walow uu maqan yahay hadduu imaanayo markuu yimaado xataa kuma oranayo walaalkay baa cusbitaalka yaal sababtoo aniga walaalkay maaha aniga adaa aabahay laakiin isaga walaalkay maaha ilmaha ay dhashay naagtaasina ma aha aniga walaalay waxna kaama rabo wiiri adduuniya aakhiro habaar baan kugu ogaa waxay tiri aniga habaar haddaa igu og tahay anigu waxaan adiga kuu dhimi ma jirto aabahay baa tahay ninkaas markuu yimaado yarad baan kaaga qaadayaa xaqii xuquuq waxa iigu leedahay baan ku siinaya laakiin aniga kuwaa walaal ma nihin markaasaa igu khasbaysaa may ilaahay san waxaan ka rajaynayaa aniga hadda waa i habaartay laakiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu isagu inta xanuunka ka kaco hooyadii ilaahay ku soo bedelo naagtiisa waa laga habaarayaa waa dhaqaaqay odaygii markaale halluumina aan cid kugu daray naga tag musiibo kugu dhacday gabar yar la joogtay bay tirana inta ka daba carartay waa ka halkaas sii socday markuu wadada ka leexdo waxaad tiraahdaa adeer cusbitaalka xaggu xigaa intaa kaliya dheh odagu waa iska tegayba ma ismadax maray xamar weeye waa wadu iska qaaday si u socday bay gabadhii yareed gaartay waxay tiri adeer cusbitaalka ku socotaa halka ma xagga u leexnaa naga tag waalidka uu tegay markuu cabaar tegay baana daba joogtaa gabadhii kama harin inkastoo uu hanjabay uu markaasuu miirsaday ciil baa hayay odag markaa kadib buu miirsaday waa maruu intuu ka tegay bakaaraha uu sii lugeynaya dee xaggee xaafadda hodan oo dhan jaray markaasay gabadhii yaray soo gaartay markaasay taa adeer halkaa ma aha cusbitaalkii naayaa iga tag habaar qabtadii gabadhii buu habaaraya mid baa lahjadiisa inta gartay wuxuu yiri warhaadhe gabadha yari aday wax kuu tilmaamaysaa mayadaa wax kaa rabtaa xaggee ku socotay odagaas markaa warkiisii u istaagay wuxuu yiri waxaan ku socdaa cusbitaalkaas cusbitaal Madiina cusbitaal Madiina markuu u sheegay wuxuu yiri okay cusbitaal Madiina xagga ama xigee kaalay wadadaas maraysa halkana ka leexanaysa ma garanaysa hadii kalena walbal aan taxi ku jaro laakiin taxi gaari baa ku geynayay taa cusbitaalkaaga tigtay ma garanaysa waa la iswaraystayo way isfahmeen isku deegaan macnaha inay reer mudug reer galgudud in isla yihiin bay isfahmeen kiibaa taxi u jaray gabadha yar kama agtay taxigu saaray wuxuu yiri taxi markuu saaray wuu yiri adeer adigu maxaa ahay waxay tiri wuxuu ka soo xanaaqay gabar u dhahay waxay ugu tiri ha ka harin wuu lumayaa iyaduna waa umul bay ahayd markaa ma socon karto waxay tiri ha ka harin qoraxdu hadday dhacdo xataa ha ka harin adigoon tusin cusbitaalka haddaa markaa hadda tusay waa ilaahay mahadiis adeer wuxuu yiri waa nin madax adag ninkan anaga ku aqaan deegaanku ku yimid shaqeyn waan garanayaa iska tag orod
khayr bay noqonaysaa hadda ninkii tegi gabadhaas waxaa tirahdaa cusbitaalka aabbaha cusbitaalka ugu tag saa ku dheh gabadhii yarayd waa soo tagtay iyadii laftigeedii balanbashay dee muqdisho intay laagta ilaahay baa tiyo balanbashay oo fak laba say u soo ordaysay xaafadii timi gabadhii waa u sheegtay waxay tiri nin baa taxi saarayo wuxuuna igu yiri aabbaha cusbitaalka ugu tag una tegi maayo halkaana u dhaafi maayo haddii aakhirana jahannaba lay geenaya adduunkana aan ku googo'ayo ma rabo wiilkiisaas iyo kuwaas fir meeshay ku leeyihiin inaan arko lagama yaabo wiilkii ilaahay amarkii muddo yar buu meeshii lagu hayay wiilkii yaraa malaha gudaha iyo intii dibaadiya ku haysteen baa gudihii maskaxda gudaheedii iyo madowgaatay oo dhaawac gaaray oo ninkan waa iska leeyahay maahan sho waxba lama noola oo xaaladdu waa adag tahay almuhim si kasta ha ahaatee markii dambe wiilkii yaraa dhimay cusbitaalkii wuu ku geeriyooday eedadeedaa ka qayb qaadatay geeridii iyo wiilkii waa la aasay tolka wixii joogay deegaankii magaranaysa dhimay aabbaheed wiilkii allahu naxariisto xataa kumay oran